goormaa la bixin waayo zakaatulfitriga goormaa la bixiyaa waxaan goormaa la bixiyaa saddex arrimood goormay waajibtaa markay ciiddu soo gasho ayay waajibtaa waxaa waajibaysaa marka uu qofku uu dambaabayaa hadduu bixin waayo habeenkay ciiddu soo gashay iyo maalinkaa ciidda ah bay waajibaysaa taa waa masalada koowaad masalada labaad ee la xiriirta waxay tahay ma laga hormarin karaa maalin laba saddex in laga hormarin karo intaan ogahay khilaaf kama jiro xilligii saxaabaduna waxay tilmaameen maalin laba ilaa saddex inay hormarin jireen qofka sakada uruurinayana ay usii dhiibi jireen iyagana xilkooda halkaa uu kaga dhici jiray cid guud oo uruurinaysa markay jirto danta guud u taagan qasab ma aha zakaatulfitriga adig gacantaadu waa inuu ka baxaa zakaatulfitrigu laakiin hay-ad iyo dowlad iyo hadday jiraan mas-uulka ah masaakiinta iyo dadkii mudnaa inay bixiyaan ina ay kaydiyaan way yeeli karaan oo nabiguba alai salaam qaarkeed wuu kaydin jiray oo meel buu dhigi jiray qisada aad taqaanaan ee abu hurayre oo raashin sadaqaada waardi ka ah uu shaydaan u yimid oo isagoo meel ka guranayo oo meel ka duleeshaday uu arkay ee uu qaban jiray uu ka fakfakan jiray raashinku zakaatulfitri buu ahaa bakhaar buuna ku jiray 3 habeenna ibliis baa shaydaan baa isaga soo daba noqonaya abu hurayrena waardi buu ka yahay mar hadday dadku ciddii mas-uulka masaakiinta ka ahay u dhiibaan iyaga waajibkii uu ka dhacay waa inaad ama miskiinkii ku sintaa ama ciddii mas-uulka ahayd aad u dhiibtaa iyagu hadday u arkaan inay qaybiyaan qayb gaadhsiiyaan qaybna ay u dibdhigaan oo u kaydiyaan wakhti ay ka baahi badan yihiin oo duruufta masaakiinta kala duwan u eegaanna waa la ogol yahay sida nabiguba samayn jiray sala allahu calayh ali wasalam maalin laba saddex in la hormarin karo intaan garanaya khilaaf sidaasihi kama jiro ma laga sii horraysiin karaa culimmadu waxay yidhaahdeen haa weli sakaatulfitri sanad iyo laba la hormarinaya ma aragteen culimmada muslimiinta qayb baa qaba oo sakaatulmaalkaba xagga horumarinta waa la hormarin karaa bay yidhahdeen culimmada qaarna waxay qabaan bisha ramadaan hadday soo gasha sida shaaficiyadii ragga la midka ah waa la bixin karaa waayo soon iyo afur inay labada ay isu yimaadaan bay ku waajibaysay mid haddii la helay mid kale waa loo hormarin karaa sida sakaatulmaalkaba nisaab iyo xawl bay ahayd nisaab markaad milkida qadarkii sanadkoon soo wareegin waad hormarin kartaa qolana waxay yidhahdeen may nisfu thaani nuska dambe 15 ramadaan wixii ka dambeeya waa la bixin karaa qolada 2-3 maalmood lama dhaafin kara yidhaahdeen aniga qowlka shaaficiyada raajixila oo mar haddii sababkii wujuubka asaasiga ahaa ee soonka ahaa la helay in la hormarin kara laakiin waa iska masaa'il ijtihaadiyaho aad ha ugu wareerina wadaadkii idin soo maraba mid baa ila saxsan markuu yidhaahdo duul culimo kasta kor u kaaji ha noqonina taa waa horumarintii salaada ciidda ka hor maalinka ciiddaa in la bixiyo inay sunno tahayna waa itifaaq laisku waafaqsan yahay xadiidka ibni cumarna wuxuu ahaa rasuulku wuxuu farad yeelay zakaatulfitriga in la bixiyo qabla khuruuji nnaasi ila asalaati dadku intayna salaada aadin buu nabigu amray sala allahu calayh ali wasalam inay amarkaa sunno horta ay tahay khilaaf kama jira intaan oga ma waajibba mise maalintaa ciiddoo dhan waan bixin karaa qowlaani liahli lcilmi jamhuuru ahli lcilmi waxay qabaan iyo fuqahadeenna muslimka badankood in maalinta ciiddoo dhan la bixin karo in laga hormariyana ay afdal iyo sunno ajir badan tahay waxayna ku saleeyeen xadiidkaa amarkaa waxay dhaheen amru nadbin waistixbaabin waaye sunno waaye bidaliil qaybta dambe ee xadiidkaa tusaale tusaysa oo calaamadii astaanu ah sax riwaayo kale ahayd
man addaahaa qabla asalaati fahiya zakaatun maqbuula waman addaahaa bacda asalaati fahiya sadaqatun min asadaqaati ninkii sakalaada ka hor bixiyana zaka la aqbalay waaye ninkii kadib bixiyana sadaqa sadaqooyinka ka mida waaye sadaqooyinka guudi ajir bay leeyihiin soo maaha ninkii waa dambaabtay lama dhihin bay yidhahdeen weli ajir buu leeyahay laakiin way kala ajir badatay wakhtiga horaa sii ajir badan wakhtiga dambana waajibkiina wuu ka dhici waxuun ajir ana wuu yeelan nin ajir weli leh xaaraan ma gelin bay yidhaahdeen saasay jamhuurtu u badan yihiin laakiin waxaa kuu fiican adiga salaada ka hor inaad iska bixiso maalinta ciidda ma laga dibdhigi karaa maya xaaraan wey laakiin haddana waa waajib waad bixin saxa waa casaa wey waajibkii waa waajib ku saaran oo say qoortaada zakaatulfitri waajib ugu noqotay wax kaa cafiyey ma jiro cumuumkii xadiidkana wuxuu ahaa fadaynu llahi xaqu bilqadaa daynta ilaahay xaquu kugu yeeshay xaqa caamka ah aadan gudanin baa mudan in la hormariyo oo la guto inaad bixiso mar walba waa waajib waa xaq masaakiin maalinka ciiddaa cudurdaar la-aan haddaad kadib dhigtana waa dambaabi oo towbad iyo istikfaar baa lagaa doonayaa oo maalinkaa ciidda inaad dhaafisa ma ahayn